iyadoo ay maanta ku beegnayd maalintii saddexaad ee ololaha xisbiyada qaranka oo uu xisbiga wadani guud ahaanba ku soo bandhigayay gobolada dalka cududiisa taageere ayaa waxay maanta Cabdilaahi Nuur Xasan iyo Mooga Cabdilaahi Xasan oo kamid ah musharaxiinta golaha wakiilada iyo deegaanka ee gobolka Awdal ay cududooda taageero ku soo bandhigeen magaalada Gaarisa ee ka tirsan gobolka Awdal. Si kastaba ha ahaatee labada musharax ayaa waxay salaan iyo socod lug ah kula qaateen bulshada magaalada dhexdeeda waxaana loo soo galbiyay fagaaraha khayriyada magaalada Gaarisa iyadoo ay madashaasi kulmisay oqaal salaadiin siyaasiyiin dhalinyaro iyo haweenweynaha magaalada Gaarisa ayaa waxa halkaasi hadallo kooban ka jeediyay qaar kamid ah oqaashi iyo mas'uuliyiintii munaasabadaasi ka soo qayb galay waxaana hadaladoodii kamid ahaa kamidqano degmada Gaarisa markaan la hadlayo dibaadadkii reer Gaarisa weeyaan degmada Gaarisa waa kamidqano oo uga muuqano rasmiga wadaniga muuqano uga muuqano xildhibaanadeena musharaxiinta inna golaha bilaasha yahay inna golaha baarlamaanka sare yahay inaad soo saaro oo uga muuqano ummaduna ay inoo aragto ummada gaala yidhaahda aad iyo aad u tahleysan u lixdoon u gaala yidhaahdo wax qasanaysa inoo arko دكتورة جارسة كمان ويندرسها والله وضيقانا وعبد الله نور الله يقانو عبد الله رسول وموضع عبد الله الله يقانو إن اللي وضيقها وصدق عبد وطني لما رأينا المباشر عني عبد الله وحولي برها بانلمتا وموضع عبد الله وحولي برها بانلمتا وحول هركين صاحبي عن هاي وعن ديار وحين وقبل الناي إن صوص هذا لبلا إن لبلا الدنيا كلا أحد لوش المحل وراح الجيران عبد الله نور حسن هو كسر عن قرع برلمان إنه عبد الله حسن وما نفس المحل وراح الجيران كي تقول الغيب كان عند الجاي ولا بلا ولا ايه اسكت ايه كسر جدا اسكت منها وحاله انه بلره سلا ما تقول تاجيه انت عندك انه تاجناد انت هذا ما تقول شيء ولا بس سلا مو تاجيه الا كوب يسكت كيكه انا ازاي قال الا عاد يسمع الا انك الحقيقه ما ما تقول حسبك وطني وعلينا محمد ما تنتهي لا بعدك ويرمون ويننا وعلمنا حلبان اسكون ستكن كشف عن حسبك وطني وعلينا Gaarisa yang lagu haluksan kuliah Gaarisa makinnya kering anak ini kalau kuliah lagi cari makan dah يا ريب الله ما ينسى الله كله آمين كل شيء مروا كبا ويا رام الله ما ينسى الله كله آمين أما ما تقول شيء عرجنا قوة كرسي سوق الله نجا أنا البصعد ما يسول كيدور ولد صحيح يا لو سوق الله نجا هو عندها يلي حاجدي مروك مرا ممكن كرفرا الباكي اسكو قرا هايو قبوجيايو كل باكي لغو دما هايو هاجيا ugu dambeyn musharax Mooga Cabdilaahi Xasan oo ka sharaxan xisbiga wadani golaha deegaanka ee degmada Lughaya iyo Cabdilaahi Nuur Xasan oo ka sharaxan xisbiga wadani golaha wakiilada ee gobolka Awdal oo hadalka soo xidhay lana dardaarmay taageerayaashooda ayaa waxay yiraahdeen waxa kale insha Allah haddaan musharaxiintii golayaasha deegaanka aan nahay waxa wax ka qaban doonaa gobolka aan joogno gaar ahaan degmada Lughaya waxyaalo badan ka qaban doonaa insha Allah waxa kamid ah waxyaalaha ka qaban doono caafimaadka waxbarashada ayaa ka qaban doonaa insha Allah waxyaalo badan iyo waxyaalo kale bulshada u baahan yihiin waxa ka doonaa dadweynaha reer Gaarisa ee degmada Gaarisa inay codkooda la siiyaan waxaan leenahay dadweynaha reer Gaarisa ha noolaado xisbiga wadani ha noolaado
gudoomiyaha urur cabdiraxmaan urur ha noolaado insha allah sidaan ugu soo baxdeen inaad dagaartaan ugu soo baxdin oo codka loo siisin hawshu way dambaysaaye ayaan naga doonaynaa waxaan wax ka bedel ku samayn doonaa haddii aan nahay golihii wakiilada waxaan nahay dadka shacabka golaha shacabka la yidhaha golahan wakiilada golaha shacabka la yidhaha waa golaha ku soo baxa codka ummadda ku soo baxa weyn dowladda ayay wakiil iniga noqoni doonaan hadba baahiyaha aad leedihiin bay tabini doonaan wixii ay dowladda ka soo baxeen awaamirana way ini keeni doonaan weli ma dhicin xeebteenna degmada Lughayo iyo Zaylac cid aan musharaxiintii golaha deegaanka ee berigii dhaweyto maahan golo wakiiloon doorana weli ma jiro 30 sano cid aan la xisaabtanto ku fadhida golaha shacabka ma jirin maanta rabnaa inaad jaaris hadduu ilaahayna siiyey oo helay inaad gacantiina ku muujisiin ciddaad berri la xisaabtami lahayd inaad meesha geysataan haddii ilaaha awoodda la yidhaahdo annaguna markaad waxa weeye cidna daba joogto nala xisaabtataan hello fadhiisan mayna wixii aan qaban karno waa la qabanaynaa waxaan u shaqaynaynaa dalka yaga iyo dadka yaga iyo diinta yaga ayaan u shaqayni doonaa lakuna dhaaran doonaa haddii ilaaha yidhaahdo ku guulaysano kuna kuraas ku guulaysano waa Mustafa Xuseen Cabdi Mustafa Garbo wararka telefishinka Horyaal magaalada Gaarisa.